أري شودو أنا حالكو سمعنا سباد روم كيغو أري أبو وكوسو بها نو سند مشوايا نو أبو Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan sameynayaa oo la igu yeedhay oo aan balxal u helayaa bathroomkan amaba suuliga musqushan lagu maydho oo intay gebigeeduba biyihii ka dhex baxeen baadkii iyo darbiga gudaha dhexdooda u dhaadhaceen madbakhi ama kijadii waxaan ku risiinka oo dhan soo go'ay dib u habeynteeda ayaan isku dibaridayaa video yaro aan aad u badnayn weeyaan markaa skip baan sameynayaa daawasho wacan bathroom renovations oo sameynayo Cabdiraxmaan warxinta guriyaha saakala daawadayaal bathroomku waa kan aad aragtaan waxa weeyaan gaabka u dhaxeeya tileska halkii ay kaga dejin lahayn darbiga ayaa waxay sameeyeen intay gaab weyn u dhaxaysiiyeen bay tilinkiina si siman u dhigeen marka biiba halka ka dhex baxay hataa magaranaysa groutingkii iyo wixii saxda ahaa ma isticmaalin arrinkaasaan xalinayaa waxa kale oo keenay in ceilingkii hoosta halka kijada uu sidan ka dhigo gebigeedaba uu waxaan ku iri soo intuu qooyo looxyadii choice-ka la odhan jiray amaba loogu talagalay inay soo hayaan ceiling oo dhan oo gebigoodba burburay oo soo fuqaya iyo waxaan ku iri kuwii kaloo burburay waxaan ku iri dib u habeyn aad u weyn bay adigu u baahan tahay hadal iyo dhammaan marka videogan baa idinku tusi doonaa anigoo degdeg dib u habeyn ugu sameynaya insha Allah daawadayaal shaqada dib u habeynta ama refurbishmentku waxa weeyaan marka hore aad wax walba jajabiso oo wixii aanad u baahnayn oo dhan aad bedelayso anu saasan jecel inaan ka soo bilaabo fresh amaba space cusub aan sameysto shaqo cusub bilaabo. This is what you call crumbling infrastructure. Yeah. So that whole first row is coming up. You see that? That whole first row, bro. daawadayaal weli dumintii baan ku jiraa waxaan ku iri wax kasta waxa way wada qoyeen flooringku waa qoyan yahay four vinyl amaba afar shamaca istul yaala kulba waa la istul dhigayay in dadkii sameynaya waxay sameynayeen ma garanayo hadii la haydo waad aragtaan kulba way istul dhigayeen wax oo dhan baan ka saaray imika dhibka haysta waxa weeyaan dhulkii uu qoyan yahay dhulka qoyanna wax aan ku sameyn karo dhowrka cisho soo socda ma jiro marka waxaan doonayaa intaan daaqadaha furo in at least 2 days to 3 days meelahaas aan ka tago oo ay wada qalasho looxyada dhinac walba kuwa baadka ku hooseeyo kuwan deetana aan dhigo plywood amaba looxa plywood ka la yiraahdo andalay ahaan kadibna aan shamaca dhigo insha Allah waan tusi doonaa markaan dhameeyo kulli wuxuu dhan wada record gareyn maayo waqti u heli maayo iyadoo waqtigu ugu yar yahay sidaas awadeed waad aragtaan darbigii haddaba waxaan sameeyey plywood baan ku dhajiyay si aan groove yar u qaloociyo tilingkii iyo strip metalka oo aan koodho silicone marinayo waad arki doontaan black say soo baxday marka biyihii kor buu taagan yahay hadda tilekii macnaheedu waxa weeyaan biyuhu markay ku dhacaan hoos bay uga daadegayaan halkan kale waa iska caadi iyada hadda tilinka caadi u dhigtoon taa markaan dhameeyay oo aan goodhowdi tus doono waxaan u imiday ceilingkii oo aan qiyaastay kadibna aan jaray shape ahaan aan u jaray si aan plasterboardka cusub aan ku dhajinayo aan iyana qiyaasteeda u garto waanigan dhameeyay gebigiisba waan ku dhajiyay intii hore waan loobina record gareeyo hadda waxaan buuxbuuxinayaa inta yar baan idin tusayaa si loo buuxbuuxiyo la isugu simo new plasterboardka iyo old magaranaysa cusub aan ku dhajiyay waad aragtaan baan u maleynayaa dhac de waxaan marinayaa imika final codekii oo la yiraahdo joint compound dhinacyadana feathering out oo magaranaysa aan kii kaliya kan baan isku xidhayaa waad aragtaan baan u maleynayaa waxa weeyaan final codekii oo aan marinayo joint compound already plasterboardka waan ku xidhay waan iloobi recordingkeedii waad aragtaan bathroomkii hadda dhamaaday walaalayaal sidee biyuhu dhaafayaan groove-kaas loo baahnaa strip metalka aan hoosta ka xidhay birtaana lagu xidho silicone la mariyo halka grouting badan laga marinayo silicone badan la mariyo kadibna biyo way ka daadanayaan saad u aragtaan mooyaane imika dhibkii soo noqon This is why you need to give it a little groove. You have to give it a little groove. You can't just tile over it. ayaanu dhibkuna dib u soo noqonayo flooringkii waad aragtaan waan dhigay plywoodkii baan ku xidhay shamac cusub baan dhigay siliconekii baan mariyay xabad cusub baan ku xidhay halka baadka dhinaciisa gebiga bathroomkii waa kaas oo u dhamaaday baan ku iri maasha Allah imika way soo guri karaa rinjigun baa harsan rinjigana dee lacagteeda lama siino shaqada ma qabanayo ma garateen waxa weeyaan hadda waxaan sameynayaa undercoat baan marinayaa ama rinjiga hore ceilingkii si uu ceilingku isugu wada sinmo oo loo kala garan waad aragtaan miyaad moodaa inay halkaas god ahaan jirtay walaalayaal imika waxa weeyaan rinjigaasaan marinayaa mar walba rinjigan markaad marinayso fiidiyoda dambe aad ku tusi doonaa aayar waayo waxa dhici karta in aad soo jarto
muxuu ahaye joint compoundkii aad marisay meeshaas uu kaa soo go'o haddaad xoog isticmaasho marka aayar si yaroo gentle baa loo baahan yahay baan idiin sharaxaya halkan haddii kale uu soo go'o waxay noqonaysaa inaad dib u buuxbuuxiso haddana waqti kale kuu qaadanaysaa intuu kaasi qalalaya rinjiga aad marinayso kadib marka aad marisa undercoat waa inaad kaga tagtaa saacado badan inuu qalalo intaan rinjiga first coat ka marin undercoat iyo rinjigu way kala duwan yihiin fiidiyada dambe aad ku tusi doonaa insha Allah waad aragtaan sida halkan ka aragtaan waan dhamaynayaa iminka waa finishingkii waxba ima hadhin waad aragtaan dee walaal siilinku siduu u dhamaaday eesh cala rinjigiisii oo dhamaaday godka yar ma tusayaa see loo buuxiyo just in case waxaad marinaysaa decorators amaba silicone amaba decorators mate saasun baad ayar marinaysaa. Once I paint over that, it should all be alright. daawadayaal ila daawada sawiro kadib iyo ka hor ah oo before and after bal bathroomkii eega waxaan ku irsan ahaa kadib markii aan ciidaamkiisa ruugay eesh calaabaan ku iri biyuhu soo dhaafayaan waad aragtaan waan yara qalloociyay farsamo bal waxaan ku iri flooringkii eega walaal uskaga ahaa markaan hagaajiyeen ciidaamkiisa ruugay eesh calaabaan ku iri marka biyo kasta dad ku daadsan ma dhaafayaan waana adeeg waa lagu socon karaa bal idinku ceilingkii amaba roofkii eega markaan ciidaamkiisa ruugay eesh calaabaan ku iri inuu godweligii ku yaalo la moodayo daawadayaal dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad baa u mahadsantihiin inaad daawataan fiidiyowgayga oo soo booqataan channelkayga fadlan ha naga iloobina subscribe waxaan u sameeyay channelkan iyo channelkayga kale hoosan ku qoray linkigiisa dadka Ingiriisiga ku hadla The Somali Handyman waxaan ugu talagalay inaan ku caawiyo bulshada Soomaaliyeed oo aan la share gareeyo khibradahayga kala duwan ee dhinaca dhismaha idinkuna igu taageera subscribe insha Allah jazakallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh